marka noloshan adduunyada macaankeyga raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa alladina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikri illah ala bidhikri illah tatma'innu alqulub ilaahay alladina aamanu kuwa ilaahay rumeeyay ee qulubtoodu taacada ilaahay iyo dhikriga ilaahay ay ku xasilayso ilaahay baa yidhi alaa intabihu ilaahay baa inoo nasteexaynaya ilaahay baa inoo yeedhaya ilaahay baa inoo khayr miiraya walaa yunabbi'uka mithlu khabiir fas'al bihi khabiira waman asdaqu min allaahi qiila ilaahay baa ku warramaayo kule war qalbigiinnaasi wax kale ku xasili maayo aniga macrifadeedu qalbigiinnu ku xasilaya qalbigu salaadu ku raaxaystaa qalbigu qur-aanku ku raaxaystaa qalbigu dikriga ilaahay buu ku raaxaystaa qalbigu taacadda ilaahay buu ku raaxaystaa nacam nin a'immada muslimiinta ka mida ayaa odhan jiray khamsun min dawaa'i alqalbi shan ayaa qalbiga bini aadamka dawaysa tilaawata alqur'aani bitadabbur qur-aanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakkur iyo qiyaama alleyl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa tacaala la hor joogsado wa tadarruc cinda asaxar iyo waqta asaxar xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wacala lana munaajoodo wa khalaa'u lbadni iyo calooshaada mar walba badhnaata wa kasratu siyaam bay culimmadu leeyihiin in qofku soonkiisu bato wa mujaalasatu saalixiin dadka war wanaagsano lala fadhiisto shantaasay culimmadu yidhahdeen qalbigeed dawaysaa tilaawata alqur'aani bitadabbur marka naga quraanku ma sha Allah waan iska akhriyay tadabburkii baa naga maqan asxaabta rasuulka radiyallahu anhum laga yaaba hal aayado quraana sida habeenka ugu celcelinayaan buugu u baryaayay wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun Sufyan ath-Thawri rahimahullah aayada quraanku habeenkii markuu salaatul leelkii xidhay markuu gaadhay wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wa aysan ilaahay kamalaynayn ayay kala kulmeen banka qiyaame hadduu lahaa khayr baan wataa may khayrkiisii ma aha arrintu way ka weyn tahay salaad baan wataa salaada waa lagu badbaadayaa laa shakka laakiin muuminku halkaa markuu banka qiyaame ilaahay hor joogsado salaadii iyo soonkiisii eegi maaye ilaahay raxmadiisa buu maanta eegaya qofka muuminku ilaahu raxmaddaadu buu leeyahay aayadda quraanku waagu ugu bariyay Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu markuu nabigeenu xanuunsado xanuunkii la dhacay ayaa nabiga lagu yiri salaadii baa taagan nabi Allah markaasuu nabigu Abu Bakr u sheegay umada salaada ka bixiye Aisha radiyallahu anha oo agtaagnay nabiga ayaa ku tiri inna Abu Bakr rajulun raqiiqun Abu Bakr waa nin qalbi jilicsan weeyaan ida qara'a al-Qur'ana ghalabahu al-bukaa haduu quraanka akhriyana oo hintiisa ayaa quraanka ka qalib noqotay وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه صلاة الليل كي هبينك مرقو مسجد كي نبي صو غلي وحو اركay inay yar oo suurada tuur ku tukanay qiyaam leelkii quraankiisii buu dhageystay markuu gaaray yarkii yara inna cadaab rabbika la waaqi cadaabka rabbiga waa kii dhici doona weeyaan aayada Umar markii uu gaarayna dhulku ku dhacay Umar bin Khattab intuu la qaaday ayaa gurigiisii la geeyay bil ku dhabu xanuunsana xanuunkiisa meeshu kaga yimidna lama ogeyn مقداد رضي الله عنه صحابي لو رجل مقداد بن الأسود هبينكي مركو حاسكيس أكسر حضبي تري سداس وقل قلجرة سداس وهبينك وقل قلجرة سداس مركاس يكتر والمحل قال قلنا ما بقتا ما تسيحتي ذا مركاس ورجل عبسدا حصوصت أنا حصوصنا النار جهنم أيا هرددي الراحة دي قاضي ورجلي يخافون قرآن كي أخرين يكو لكن تدبر بيكو أخرين تفكر بيكو أخرين laga yaaba hal aayado quraana habeenka dhan inuu ku soo jeedo nabigeenu kaleey salaatu wassalaam waa kii abi bilaal ba u yimid salaadii markay gaadhay ya rasuulullah salaadii ba laga sugaya waa nabigu lilmada ka daadatay maalintaas garkiisii intay dhaaftay laabtiisii qoysay halkii wajiga uu dhulka ku hayay way qoysay markaasuu nabigu ku yiri ya bilaal xalayto la aayadaha quraanka igu soo dagay waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab الذين يتفكرون في خلق السماوات إلى آخر سورة آل عمران آياتها سحالة يقصوا دقيب النبي يقولي نكا آياتها أخرية إن أنت تدبرون أن تفكرين كاسوا خسارين ورسولكم إنما الدين النصيحة